dhegaystayaal gabyaagu kolka uu qof dhintay tixab murugo ugu barooranayo wuxuu taxaa wanaagii lagu yiqiin wixii uu bulshaweynta ugu tooraa iyo guud ahaan tilmaamaha wanaagsan ee inuu lahaa lagu malaynayo kuwaasoo in loogu walbahaaro uu ku mutaystay had iyo jeer tilmaamahaas iyaga ah ee ruuxa geeriyooday loogu baroortaay waa inay ahaadaan kuwo dadka iyo degaanka uu ka baxay ay qadariyaan oo kii lehna loogu bogo kii aan lahaynna lagu daraabo taasna wax aan ku tusaaleeyo waxa ila habboon gabay allaha u naxariistay uu tiriyey gabyaagii Soomaaliyeed ee la oran jiray Cali Jaamac Haabil wuxuu Cali ka mid ahaa magaalada Berbera iyo agagaarkeeda Soomaalidii degi jirtay hilaadana wuxuu noolaa intii u dhaxaysay bartamihii qarnigii 19aad iyo horaanta kii 20aad sanadihii ugu dambeeyay 1880nadii wuxuu ku jiray xeebaha waqooyiga raggii gumaysigii Ingiriiska ku soo dhaweeyay markii dambana joogitaankiisa taageersanaa sida laga garan karo tixaha naga soo gaaray qaarkood taas ayayna ahayd sababtii colaadda maanso ay muddaba uga dhex aroosnayd isaga iyo hogaamiyihii daraawiishta Sayid Maxamed Cabdilla Xasan tuducyahal qabsi leh oo intooda badan shakhsiga wadaadka uu aad ugu wareemay ayuu marba tirin jiray kuwaasoo isaga qudhiisa caan ka dhigay maansayahanimadiisana soo banbixiyey yeelkeeda gabayada Cali Jaamac laga hayo waxaa iila foolaadsan kanaan maanta idinku jalbeebin doono ee aan u haysto maansada Soomaalida ee baroordiiqda ku saabsan inuu meel sare kaga jiro waxaa la yiri Cali oo suuqyadii hore ee Berberaad midkood fadhiya ayaa goor garaba waxaa la soo joogsaday niman uu garanayay saantooduna ay ka soo jeeday dhulka xoola daaqeenka ah ee magaalooyinka Sheekh iyo Burco u dhaxeeya markaasoo kale waatan ay Soomaalidu isu waraysataay waxay u sheegeen in adeerkiis xilsi cilmi goolle inuu geeriyooday wuxuu ahaa war uu aad uga naxay oo hadiiba in eebbe been ka dhigo uu ku ducaystay ha yeeshee mar walba sidaad adigu rabto kuuma noqotee xilsi dhimay taana wuxuu Cali rumaystay nimankii socotada ahaa markii ay ugu celceliyeen iyaga qudhooduba inay goobjoog u ahaayeen kolkii Budda loo dhaadhiciyey iyo kolkii lagaga yimid halkii uu fadhiyey ayuu Cali ka kici waayay qorraxdii baa ugu dhacday waa keligiis markii la dhaqaajin waayay baa laga kala tegay wuu gorrosiyo madaxa ayuu foorinayaa garka ayuu labada low ku hayaa goor dambe oo mugdigii uu magaaladii wada daboolay ayuu luga aan tabar lahayn hoygiisii ugu luuday dabadeedna gogashii buu isku tuuray wax yar kadibse wuu ka soo booday cashadii baa la soo hordhigay suu waa iska fogeeyey waa la qodqoday jawaabse waa hidin waaye sidaas buu waagii ugu bari barqadii kolkay tahay ayaa waxa u yimid nin ay waday ahaayeenoo markuu dareemay in wax si ka yihiin doocdoociyey dabadeedna ka soo saaray xanuunkii uu la gubanayay iyo wixii ugu wacnaa ninkaas oo la oran jiray Faarax Bawdoole ayuu u deexday una sheegay gelinkii dambe ee xalay gabaygii uu xilsi ugu baroortay kaasoo uu ka hormariyey arar culusoo haddiiba laga garan karo murugadii haysay iyo geerida loo soo sheegay walbahaarkii ay ku abuurtay isaga oo haaraamaya nimankii warka baas u soo sheegay ayuu ku bilaabayaa galgaladkii xalay iyo faaraxowga la'aantayda gogashaan ku jiifsaday hurdada goodkii igu yaacay gasiinkii la ii dhigay waxaan gowska uga daayi dar gurigii ka yimid baa warbaas iila soo galaye gablamooyin waxay sheegayeen guul darriya hooge geeridii xirsay ii wadeen gacal ha waayeene gabbal baa u dumay reerihii galiga boociyii leh abidkii rag waa go'i jire tanise waa gowe lixaroo u wada gaar ahaa gocanayee mooyi meelisadaas ay ilmadu da'ayso markuu ku arartay ayuu ku xijiyey tilmaamo wacan iyo ammaan qoto dheeroo uu xirsi ku bantookay ayna la ahayd inuu gaar u lahaa
ammaan badan oo ruuxa nooli in lagu sheego uu jecel yahay kii dhintaana uu rabi lahaa wixii ka dambeeyaa inay ku sheegaan. waa geesinimo, waa xaajo aqoon, waa deeqsinimo, waa aqoonta fuulaanka fardaha, waa dulqaadka sokeeyaha lagula xaaro, oo waa daafaca reerka. waa 6 tilmaamood oo gabyaagu uu xilsi cilmi uga samri la'yahay baroortana ugu wacan, isaga oo haddaba ina baraya geesinimadiisii, garyaqaannimadiisii, deeqdiisii iyo martida kolba u soo hoyata siduu ugu xilqabi jiray. ayuu yidhi, midi waa haddii laysgalo oo geel la kala qaado gurmad noqonayaa, iyo annagu guuto bixinaaba geelyaalihii fule markuu geelala furhooraayo rogaalkuu garaangelin ogaa gocan ayee mooyi. garaad kaatay xaajada guracan guurti kala maagtay haddii geedka laysugu yimaad golaha waayeelka nin waliba hadduu gees damco oo giijo madaxiisa wax la wada gorfeeyaba haddii la isu geyn waayo gaagaabsayaa iyo isagu gaafa hadalyaaba guddoonkii la wada raaci jiray gocan ayee mooyi. gab hadday martidu soo tiraa goobuu nala joogo godka lagu janneeyo hadduu goosan la carraabo garabsaa rag weeye hadduu gogosha soo daadsho gasiinkii la soo dhigay haddaad gal iyo daad moodo bakhayl ba isgamiime intuu gaarka ka qoslaayo godolkuu ku haasaawin jiray gocan ayee mooyi. meel kale oo gabayga ka mid a ayuu cali inagu barayaa fuulaan fardood maalinta la isugu faano siduu xirsi cid walba uga foori jiray, dulqaadkii uu xigaalada u lahaa, magaciisii inta dheeraaday meel walba gaaray iyo maantii ay daafaca reerka joogto sidii isaga ay isugu hallayn jireen. wuxuu yidhi, gugoo da'ay aroosyada haddii gowda laga saaro, shir gurmada haddii loo kaco iyo gob iyo reer aada gammaan naaxay, heensaha haddii guudka laga saaro waa gelin isdaawade, halkii garangar loo joogo gola igu bannaanaa walle, garab la'aaneeda gunnaduu ka soo toocin jiray gocan ayee mooyi. gardarrada sokeeyaha rag baa gees biciid u leh, gaadiid la dhaanshuu ahaa gibil madiidiiye, gurad uuna wada saari jiray gocan ayee mooyi. alla wuxuu golxaaluu ahaa gadafkii reeraaye, magaciisu waa gudubsanaa gaaliya islaane galbeed iyo baraa laga yiqiin goroskii dheeraaye, gaashaan biruu noo ahaa gocan ayee mooyi. markuu baroortii dhammaystay ee arar iyo dulucba wixii uu odhan lahaa uu yidhi ayuu miyirsaday. dib buu isu xisaabiyey. wuxuu garwaaqsaday geeridu inay xaq tahay, diin ahaan inuu muran ka keenaana ay gaf tahay. markaas buu eebba weyne dembidhaaf weydiistay, kana duraantay aakhire markii la tago inuu u kaso mar walba dhinaca uu ku sugan yahay nebi maxamed, nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ha ahaatee. markaas buu tixidii ku soo gebagabeeyey adduunyada tan laga guurayo ee gebagabaa joogta ee laga galbaday meesha iyo geeridii maxamed anunbaa gubtahanyoonayoo geesigii tabaye, allahayow wax dhan baan gafeeye adigu haygooynin oo geesta nebigii imari maanta laysgurayo. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo. waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.